Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kusoo dhawaada janaalkayga Firdawsi isku filan. Waa mar kale iyo new video. Beliis haddii ay tahay markii kuugu horeysa oo janaalka soo boqoto, waxaan kaa codsanaa inaad iskaraab gareyso, asxaabtaada kale la sii wadaagto oo ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Asxaabay soo dhawaada, aad iyo aad ayaa idiin soo dhaweynayaa. Alxamdulillaah, ilaah iyo mahadoo dhan u sugnaatay isoo celiyey mar kale anoo caafimaad qabo. waxaan rajaynayaa idinkana inaa caafimaad qabtiin. Inta xanuunsan alla subxaana wa tacaala allah ha caafiyo. Inta dhimata alla subxaana wa tacaala allah u naxariisto. Inta safarka allah u fududeeyo. Qof walba oo muraad lana muraadkiisa alla subxaana wa tacaala allah u sahlo. Isku soo noqod wanaagsan asxaabey. Adaa ugu faraxsanaha maanta inaan video cusub idiin soo gudbinayo. Mashquulkayga aad u badan yahay, fasaxii iskoolka galnay. marka iga raali ahaada ayaa idin leeyahay. Hooyo ilmo yar ka daba dhacaysa ahay. Marka ilaahay subxaana wa tacaala awlaada allah noo koriyo. Ilaahay waxbarashada allah u fududeeyo. Inta awlaad haysanna awlaad baariyiin oo tayibiin oo qurratul cayn ilaahay subxaana wa tacaala allah ku irsaaqo. Asxaabey mar kale waxaa idinka codsanayaa wiilkan habaryarta oo ahay oo iga xanuunsan inay igu duceysaan inuu ilaahay subxaana wa tacaala caafimaad sariica siiyo. Idinkana in alle intay awlaadka xanuunsanta allah idin caafiyo. Intaan haysanna alla subxaana wa tacaala awlaad baariyiina allah ku irsaaqo. Asxaabey maanta waxaa rabaa insha allah inaan ka hadlo hadduu ilaahay yiraahdo iqaamaadka oo waxyaabo badan iska bedeleen hadduu ilaahay yiraahdo, iyo waxyaabo kale oo isoo weydiiseenna waa idinkaga jawaabi doonaa biidhnillaahi tacaala. Baari hadduu ilaahay yiraahdo fiidiyowga meel dheer ha la gaarsiiyo. walaalaha mar walba fiidiyoyada share gareeyo oo idin mahad celinayaa. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Waxaan kale oo rabaa inaan codsi halkan in kaga soo gudbiyo fiidiyow aan qaybta commentigayga kusoo share gareeyay. Walaalayaal oo gabadhaas aqoon uma lihi, waa gabar Soomaaliyeed laakiin waa hooyo aad uga damqaday maadaama hooyo Soomaaliyeed aan ahay. Waa gabar Soomaaliyeed, waa gabar dadaalaysa, karti leh. Fiidiyowgeeda hoos idinkugu soo biin gareyn doonaa. Please gabadhaas iskaraabi daawashaba ku caawiya. Waxaan rajaynayaa ayadana meel dheer inay gaari doonto biidhnillah. Xaawakiin ayaa ugu qoran. Waa gabar baahiyada gaarka qabto laakiin waa gabar aad iyo aad u karti badan leh. Waa hooyo 3 caruur ah haysato. Ilaahay ha u koriyo. Noloshan Ilaahay subxaana wa tacaala iisa allah uga dhigo. Waxaan rajaynayaa awlaadeeda inay ku dadaali doonto biidhnillaahi tacaala. Ay diinta rabbina bari doonto, maadiidiiniba kula dadaali doonto insha allahu tacaala. Hooyooyin badan oo maanta waxaa jira lixdooda lixaad qabo. Hooyooyin badan oo maanta waxaa jira lixdooda lixaad qabo laakiin karti aanan haysanino awlaadeeda si fiican aan u korsan karin. Marka keep going aan dhaha gabadhaasna insha allah fiidiyowgeedana hoosa bin in kugu qaba doonaa. Please gabadhaas iskaraab u saara insha allahu tacaala biidhnillah meel dheerna gaarsiiya. Waa qof karti leh, hami leh insha allahu tacaala. Ilaahay waxaan u weydiinayaa 3daas awlaad oo yaryar ee hooyo aabbo u tahay inuu ilaahay la koriyo insha allahu tacaala biidhnillah. Irsaaqad YouTube ka wanaagsanna inuu ilaahay gacanteeda midig geliyo biidhnillah oo xalaala ee awlaadooda ku korsato insha allahu tacaala biidhnillah. Asxaabey Masar horta sidaa ogtihiin maasha allah iqaamaad aan ku joognaa wadanka. Dadka qaar waxay aaminsan yihiin oo soo weydiiyaan baasaboorka oo aa wadatid oo Yurub ama Ameerika ma lagu joogi karo miya? Maya, laguma joogi karo. Waana laazim aad iqaamo wadanka ku joogtaa. Xataa taleefanada simkaarka kuu furan maalinka iqaamadaada dhacdo waa lagaa xiranayaa. meel wax karaysid ma lahan. Marka iqaamaa lagu joogaa. Iqaamadan important waa. Maxaa hadda soo kordhay oon rabaa inaan insha allahu tacaala idinla socodsiiyo. Iqaamada awal ayaday ahayd doonashadeeda waxa yacni loo mari jiray xoogaa yar oo dhib ah. Laakiin hadda dhibka ugu weyn wuxuu yahay soo qaadashadii. 4 o'clock loo dheelmanayaa soo qaadashadeeda. Marka taanka hadlaayana la socdo insha allahu tacaala. Waa iqaamada Azhar maaha tarbiya tacliin cabaasiye mid laga qaato. Ayadoo waa 2 bir 3 bir dhib badanna looma maro. So haddaad cunug iskool aad geysatid ama international aad ama tarbiya tacliin kuma jirto oo cabaasiya ka qaadanaysa. Laakiin dhanka rafaadka hadda ka jiro oo rafaadka loo maro silaca loo marayo waxaa waaye Azhar. So Azhar hadda aad iqaamadeeda isku bedeshay Soomaaliya. Qaadashadeeda kaliya ayaa 4 o'clock la aadaa. Marka Ilaahay noo fududeeyo.
أنا إقامتي ساوgeedeen بديسمبر soo qaatay alxamdulilah ilaah maadoo dhan u sugnaatay laakiin gabar yaraa iqaamadeeda iga maqneyd ee iga reebteen reasonka igaga reebteen imaysa sheegin laakiin wallahi ilaa hadda warqadeeda meesha igugu jirtaa 4 o'clock uma dheelma karo runaan sheegayaa 4 o'clock uma dheelma karo laakiin 4 o'clock loo dheelmanayaa soo marka asxaabey asaar saasay u adkaatay maalin walbana wadankan waxaa iska bedbedelayo ilaahay khayrkiisa alla subxaana watacaala allah na soo xijiyo adkaysina ilaahay subxaana watacaala allah nagu irsaaqo walaalaha soo socdo waxaan leeyahay markaa wadankaa imaanaysid waxaa lagaaga baahan yahay dhiiranaan iyo karti iyo adeeg iyo wax walbo oo aragtid oo aad gadaal u laqdid oo tiraahid awlaadeyda inay meel fiican ii gaaraan ayaan rabaa tan kaleetood dad badanaa waxay dhahaan masar waxbarasho ma taala maadiidiini waxyaalo malahan ilmaha waqtiga looga dhumiya hooyo walboo soomaaliyeed iyo aabbo walboo soomaaliyeed waxaan dhahayaa meel walboo joogtid haddaada awlaadaada ku dadaalin waxba kuma baranayaan meel walbay joogaan ama dhul gaala ha joogaan ama dhul muslim ha joogaan ilmaha dadaal iyo dhiirigelinay u baahan yihiin waalidkana waa mas-uuliyadda weyn oo saaran awlaadda ayaka waa inay awlaadda ku dadaalaan ilmuhu waa ilmo ilaa iyo 15 sano waxay u baahan yihiin ilmanimadooda ilaa iyo yacni aan dhihi karaaba 20 may gaaraan ilmanimadooda inaa u ilaalisid ayay u baahan yihiin oo uga faa'iideyso maaha inaad ayabaad madaxaaga la eg aa u dhiibtid maaha taleefon weyni badan inaad ilmihii u dhiibtid oo aadi oga nasatid oo istiraad madaxaa xanuunaya haska haysto wuxuu rabo adee ha ku dhibaan ha kugu buuqaan ha kugu qaylaan hadaadba korinaysidba cunugaaga inaad si fiican aa u korisid soo marka way walbo soomaalida aawaba walbo soomaalida waxaan dhihi lahaa ilmaha aabaadyada aad farta ka saarteen iyo internetyada aad ula waalanaysiin iska joojiya ilmaha internetka intaa ka daminsid hadduu xataa guriga kugu jiro inaad adiga asi ishor fariisatiin waqti qaadatiin wax ka fiican male waalidiinta qaar waxay aaminsan yihiinba haddayba guriga internet oolin ama tv oolin ilmuhu inay waalanayaan wallahi inayna waalanaynin wanaagay ka qaadayaan waxa waala ilmaha oo maskaxda ka tirtiro oo qalqaaliga ka dhigo oo markii la geeyo iskuullada ilmahena looga dacweynayo waa aaladaha aa guryaha ku fariisinayseen soomaaliyahay runtaa isku sheegno aaladaha ilmaha lagu fariisiyo hadhow dadka islaameed ay dhibaan soo dadka islaameed hadhowti markay dhibaana adiga dhib kale ku imaana cunugaaga waa cunug maanta dhan laga dacwoodo noqonayaa iskuulka far taagan soo oo noqonayaa soo laakiin markii aa adiga bartid no tv waqtigan tv maaha hooyo waqtigan waqti taleefon maaha aad cunugaaga bartid waqtigan waqtiga waxbarasho waa waqtigan waqti seexasho waa waqtigan waqtiga cayaaro waa aa bartid cunugaaga hadhow dadka kalena wuu la dhaqmayaa marka awlaada alla subxaana watacaala allah noo xifdiyo hooyooyin waxaa arkaysaa guriguu iga qasayaaye ha iskaga jiro madaxuu iga xanuunjinayaaye ha iskaga jiro maxaa u dhashataa madax xanuunkiisa diidaysa war ilaahay nimcowna siiye waay awlaada maxaa la dhahaa waqtigooda uga faa'iideyno isbishal diinta aan kula dadaalno annaka waalidkiina dhalay isbishal aabbahay ilaahay subxaana watacaala jannatalfardows alaclaa ilaahay ha geeyo asiga iyo aabbayaasha lamidka oo maanta qabriyada jiifana allah u naxariisto waxaan aaminsanahay aabbahay la-aantiis maanta qofka ah inaan noqo lahaynin ilaahay qabriga ha u waasiciyo sidoo ii jeclaana ilaahay jannadiisa allah ula jeclaado aamiin iigu dhaha aabbo walboo soomaaliyeed hooyo walboo soomaaliyeed oo geeriyotana allah u naxariisto kuwa noolna cimri dheer iyo caafimaad allah siiyo waalidiinta hadday saas gacanta noogu soo qaban lahayn maanta waxna maanan bara lahayn marka awlaada gacanta lagu qabto adoo jacayl u muujinaysid cunugaagana inaa waxbartaa loo baahan yahay maaha inaad jaceylka soomaalida waxaa u naqaanaa inaan aalad farta cunuga ka saarno taas adiga asigoo ku kala fogaanaysiin markaa hadhow ka qaadidna waa isdagaalaysiin laakiin cunuga intuu yar yahay soo maxaa la dhahaa bar inaada aalad siinin hooyooyinkii tagoo ilmahooda hor u siiyo wayba tageen kuwaas allah u naxariisto hooyooyinka cusub oo maanta ilmaha yareer haysto ilmihiina aalad ha iska barin ayaan tala idinku sii lahaa soo dhawaada ayaa idin leeyahay walaalaha iqaamadii soo weydiinayo iqaamada azhar way adkaatay laakiin tarabiya tacliin xoogaa iyada sidii horetood waaye wax iska bedela ma lahan $150 lagu qaadanayaa haddii aad masar imaanaysid waxaa lagaga baahan yahay keliya adeeg
iyo qof karti leh inaad noqotid insha allahu tacaala. Fiidiyowgan inaan meel dheer gaarsiisiinaya idinka codsanaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.